waa meydkii afraad oo badda laga soo saarayo kadib markii baddu qaaday 5 dhalinyaro ah oo badda u dabaal tagay. waalidiin iyo saaxiibo badan ayaa xeebta Kawaan Bari ee degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir gaaf wareegaya iyagoo ku sugaya ubadkoodii nolol iyo geeri. ehelada iyo saaxiibadu wali ma aysan quusan oo waxay sugayaan hal wiil oo ku haray badda kaasoo la sugaya meydkiisa halka hore loo soo saaray meydadka 4 kale. maalintii labaad ay ku sugan yihiin xeebta iyagoo sugaya halka meyd ee badda ku haray inuu yimaado xeebta. dhalinyarada baddu qaada ayaa ahaa koox kubadda cagta ah oo deganaa degmada Yaaqshi ee gobolka Banaadir. Haaruun Cabdi waxa uu xeebta liido u raacay Ayuub oo ka mid ahaa dhalinyaradii baddu qaaday. waxa uu ka sheekeynayaa siday wax u dhaceen. yar oo akhyaar oo isku xaafadahayeen is arkeen markaas asxaabtii markay is arkeen kadib akhyaartii soo raacay intaana badda la gelin sawiraan la galay koob ciyaalka soo qaadeen ikis ku soo qaadeen sawiraan la galay sawireen si loo galay markii la daalay ee waxay dheen hal mar badda lugaha soo qoqoysanayna maadaama badda imaanay ayaga naftirkooda dhexdooda isku dhacay waxay isku dhaceen macna ku qaar waxay dheen badda gelina qaarna badda ma gelin bis sidii ku oo markii ninkan Yacquub ku raacay badda markay galeen adiga muddo wax yar 5 daqiiqo ma dhameyn kadib waa la waayay meel ka baxan ilmo yar aan oo imaado waxay dheen ilma isku dharka aheedeen badda qaaday. waalidiintu waxa ay qabaan cabasho taasoo ku aadan inaan lala baadi goobin ubadkoodii maqnaa. xeebaha dalkeenu ma laha ciidamo u gaar ah badbaadada dadka baddu qaado sida uu ku waramaya Cabdirashiid Cismaan Guuleed oo wiil uu adeer u yahay badda ku dhintay. ilmaheena ka horeeyay inay badda ku maqan yihiin qaarkood shala soo baxeen ilmihii Soomaaliyeedna maalinba sidaan ku laanayaan maalinka maanta annagoo ah dadka shacabka Soomaaliya oo waalidiin iyo walaalo intaba ah waan maanta waxa taaganahay intaan ayaan darro darteed wax maamulkii dawladda ah oo nala shaqeeyo ama doonyo nagu caawinaya ama wax nala raadinaya ma hayno dadkii kale sidii ilmihii Soomaaliya badda ugu jiraan wax taxadar leeyahay badda dhexdeeda ka muuqdana ma leh. waxaan codsanaynaa in badda nidaamka laga bedelo ilmaha laga cisho biyaha waana qof walba wuxuu leeyahay hal saac oo ka mid ah kuwa halka saac qofkii meel ku boogin muddo la rabnaa in badda dhexdeeda wax nala kala goobo qofkina lacag dadkuna lacag ma wada haysan lacag yar u baahan yahay lacagtina waa hal saac kastaba waa fahmi kartaa in loo baahan yahay lacag. aqoon-yahanada cilmiga badaha ku xeel dheer ayaa digniino ka soo saaraya in waqtigan oo cimiladu isbedeshay loo dabaal tago badda taasoo ay ka dhalan karaan in carruur badani badda ay qaado. 5 wiil ee baddu qaaday 2 ka mid ah ayaa 2 maalin ka hor waxa u soo dhamaaday imtixaankii dugsiga sare ee dawladdu qaaday waxayna farxadii ay ku jireen iyaga iyo waalidkooduba ay ku soo dhamaatay murugo xanuun badan.